بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kulanka SBC toddobaadkan waxa martii uga xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan soo dhaw magaciisa Cabdirashiid Sandheere SBC TV ka socda Sandheere waa ku salaamaya adiga iyo asxaabta kale maanta waraysiga ila qaada dhigi doono waana salaamaya dadka Soomaaliyeed meel kasta oo iyagana sidaas oo kale ay nagala socdaan waxa jira xildhibaan su'aasha wadada ku weydiiyay dad Soomaaliyeed oo waxa jira barakacyaal si gaar ah deegaanka matasho dad waxa jira ka soo jeeda oo xamar ama caasimadda Muqdisho la joogo barakacyaal ama dad inay xiriir galiyeen rabaan inay dhaqaale ku korsameeyaan arintaas ka war su'aal muhiim ah Soomaaliya wad ogtihiin cadaa fara badan bay leedahay dhinaca waliba wadankani waxa lagu talagalay in xiriir laga geliyo day tahay siyaasad ama day tahay amni ama day tahay dhaqaale ama day tahay bulsho wajiyada kala duwan mid waliba waxay wadataa istiraatiijiyad gooni ah siyaasadda maanta dalka Soomaaliya wada ogtihiin waa mid burburka keentay wadankani inay dadkiisa mashriq iyo maghrib ay u kala baxaan oo aan maanta sidii la isku raadin lahaa dhibaato ay ka taagan tahay sidii dawlad midaysan loo heli lahaa quwad leh sidii dal awoodiisa maanta isaga runtii isku haleeyo ciidankiisa leh oo hay'adihiisii iyo kaabayaashiisii dhaqaale iyo mid bulshadeed iyo mid amniyeed iyo mid siyaasadeed inta ay u dhan yihiin wax badan runtii aad moodid in lagala diriirayo ayaa dareemaysaan xaaladda amni lagaga warrami maayo inta Soomaaliya burburkii kaliya marka laga yimaado iyo sida ay u burburtay qaabkeedii in ilaa yoomana hada ay soo taagan tahay khudadii lagu burburiyay Soomaaliya oo dawlad kasta oo timaado la doonayo in ayadana la carqaladeeyo ama la burburiyo iyadoo tababar badan la adeegsanayo Soomaalidana badi ay tahay mid iyada la isku jeedinayo oo hadiya jeer kuwa maartay in wadankoodii in lagu burburiyo ama dubihii lagu maartay burburin lahaa iyaga gacantooda loo geliyo si kastaba ahaatee hadda midan aad ka dhawaajisay marka aan bulshadana aan raaciyo oo Soomaaliya maanta is aaminaad la'aanta iyadana sal ay u tahay magac qabiil inta lagu maartay xamaasoodo maanta magacii Soomaaliyeed inay yar tahay in lagu xamaasoodo ama qiiradii wadaniyadeed shalay Soomaalida lagu yaqiinay inay wax badan iska bedeleen oo maanta dhan marba waxaan gaarnay yaa Soomaali oo hadaa tiraadid inaanan lagu soo jeedsan hadaa tiraadid yaa muslim oo xataa aanan gadaal lagu soo eegin war yaa reer hebel oo hadaa tiraadid yaa way ninka adiga maartay ku soo hujuumay la yiraahdo isla markii xataa inaad gardaran tahay iyo in kale xataa aanan la kala saarin oo maaragtay tii bari jaahiliyada carbeed oo kale iska noqotay bila yasaluna akhahum hina yandubuhum fi naibati ala ma qala burhana haday habar wacdaan maaragtay ilma adeeradooda ama tolkooda nin kamid ah ama gabadhooda maba isweydiiyano maxaa keenay maxaa maaragtay buuqa iyo qaylada iyo dhibaatada intaan la isweydiin balse hebel ma qaylisay oo habar wactay ama hebel miya habar wacday hayna keena inta la duulaan tago laga yaabo iyagoo gardarnaa xataa in dhibaato kale loo geysto dad iyaga ka gardarnaayeen dabadeedna laga qoomameeyo waxaa soo dhan waxaad moodaa in Soomaaliya aan waqtigii ummadda adduunka ay ka ilbaxday inaan dib anaga u noqonay casrigii jaahiliyadda laakiin su'aashaada maanta markaan u imaado dhabta ah waxay qayb ka tahay iyadana dagaalka Soomaaliya dhaqaale khayraadka basiyay oo mid hadii aqli lagu qaadan karo hadii mid xoog lagu qaadan karo hadii mid tab iyo xeelad lagu qaadan karo intaba loo wada farsamaystay loo adeegsanayo dad Soomaaliyeed marka aad su'aasha aad leedahay dadkii Soomaaliya مثلا goboladan maanta wax soo saarka ama shabeellooyinka noqdaan ama jubbooyinka noqdaan caanka ku noqday xoolo dhaqashada iyo tabcashada beeraha iyo kalluumaysiga hodantinimada Soomaaliya door weyn kaga jira nolol ahaan iyo jiritaan ahaanba inay dadkii shalay marna colaad lagu barakicinay marna ma aragtay abaaro iyo waxa kale dabeecad la timid ilaahay xaqiisa ay ka ahaanayeen inay ka soo barakacaan maanta in ay socoto farsamo oo
lagu saleeyey waxa la yiraahdo gargaar bani aadam. gargaarkii bani aadamka sidii loogu talagalay ee dowladana qorshe ahaan u dejisay dadka dhibaatada ka soo gaartay ama abaari ha noqoto ama colaad ha noqoto weji ka duwan inay bilowdeen dad ayaga isu muujinaya inay dadka marka masaakiinta ah ama dadka danyarta ah inay ayaga taakulaynayaan, balse cagsigeedu ay tahay. marka sidaa aan ku leeyahay dadkii beeraha tabcanay iyo dadkii xoolaha dhaqanay iyo dadkii kaluumaysiga ee badaha maanta wax ka soo saaranayay oo intaba Soomaalida ayaga halbowlaheeda dhaqaale ee iyada ay ku dhisnayd ayaa waxaa lagu sameeynayaa soo barakicin dadban oo tahjiir wax afka carabiga lagu yiraahdo oo lagu soo ururinayo magaalooyinka waaweyn oo ay Muqdisho number 1 ay ka tahay, oo aad dareemaysid in waxa ka socdo Tareedisha iyo Xamar inta u dhaxaysa ama Afgooy iyo Xamar inta u dhaxaysa in ay tahay arin dadka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan ay tahay, dawladda Soomaaliyeedna inay ka hortagto looga baahan yahay ama wax ay ka qabato. waayo maalin walba baawuro ayaa laga diraa Muqdisho oo ay soo qaadayaan dad loogu talagalay in moorooyin iyo teendhooyin iyo buushash ee laga wada samaystay inta u dhaxaysa Tareedisha iyo Muqdisho ama Xamar iyo Muqdisho iyo Xamar iyo Afgooy aan yiraahdo in dadkaasi la rabo in meesha la keeno, marna FEC wax loogu tuuro, marna halkaasi hay'adaha gargaarka wax la idin kaga raadinaya maxaad beer dhibkeeda iyo maxaad xoolo raacidooda iyo maxaaba bad iyo maartay iyo dhibaatadeeda kugu maartay kalifayo kaalaya la yiraahdo loo gacan haatiyo anaga idin caawinayna xataa qaabkaad ku imaan lahaydeen gawaari loo diro laga soo buuxiyo si halkaasi NGO-yo oo ayaga kaliya danta ay ka eeganayaan inay tahay maartay dollarkaasi ayaga ay ka eeganayaan ay ka helayaan aanan wax kale ee dal iyo dad iyo diin oo ayaga ay uga xishoonayaan aanan jirin ee ay doonayaan inay dhaqaalihii dalkan ay sidaa ay ku burburiyaan dadkii tacbatada ahaa ee beeraleyda u badnaa iyo xoolo dhaqatada iyo kaluumaysatadana inay ayaga shaqooyinka ay ka soo tagaan ummad wada cadilan oo shaqaha loo raadiyo loo abuuro lahaa intii shaqaysanaysana shaqo la'aan iyo gacan hoorsi iyo dulinimo inay ku noolaato la rabo, dadna inay halkaa hunguri uu ka galay inay daara kaga dhistaan nolol oo ayaga ay markaasi oo bahbaha ah inay sida ay ku helaan ayagana qorshaystay ayagoona fikradana aan ka duwaneen kuwa loo soo dhiibay tan amnigana lagu burburinayo iyo tan siyaasadana lagu burburinayo iyo tan bulshadana lagu burburinayo. waan gartay xildhibaane hadalkaada waxaa kala dhaxbaxay Soomaaliya dhaqaalaheeda wuxuu ku tirsan yahay saddex shay: kaluumaysato iyo xoolo dhaqato iyo beeraley. marka maxaa yani arintan asalka ku haysaa in dadka la curyaamiyo oo baabuuro loo diro oo Xamar loo keeno iyagoo shaqaysanaya hadana meel barakacyaal in la geliyo? arintaas maxay salka ku haysaa isleedahay? arintan waxay salka ku haysaa waa fikir isticmaari ah way oo shalay haddii Soomaaliya isku wada duuban oo hal dal oo hal diin iyo hal dhaqan hal af ay leedahay sharqan wa garban junuban wa shamalan loo kala diray ma gartay dhexdeeda inta colaad la dhex dhigay ee wax ka cararay wadanka intii caqliga iyo garashada ehl u ahayd ee dhammaan la kala fiijiyay ee Yurub iyo America iyo Afrika iyo Aasiya iyo Europa ee maanta laga tuuray oo dalkoodii ay baneeyeen oo gaajo oo ay ayaga oo ay oga tageen ayagoo barwaaqada ee basiyay haystaan oo badda ugu dheer ee Afrika dhul 82% oo dhul beereed ah oo barwaaqo ah oo webiye oo maartay oo saddex ah labada dhaadheer ee Shabeelle iyo Juba iyo Daawo ee ay u dheer yihiin ya dadka sidaasi ee iyaga qorshihii looga dan lahaa ay ahayd inay buuraha maartay ay ka raadiyaan maartay ee wadamada saxaraha ah ee gabdhahooda lagu kufsado oo wiilashooda ee maartay ee hunguri intay ka raadiyaan ee xabsiyo ku ura ee wax aanan bani aadamnimada la aqbali karin lagu sameeyo waxaas oo dhan ee sharaf dhaca ah ee lagu sameeyay ee Soomaaliya dalkeeda loo nacibsiinay ee iyada la isku dilay ee dhexdeeda iyada isku baabiisay ee kala cararka galiyay waxay ahayd siyaasad laga soo shaqeeyay oo shalayna markii kow laga bilaabayayna colaadana looga bilaabay horta quwadeena markii anaga ciidan ahaan iyo dawlad ahaan markii Afrika laga dareemay
in annaga iyo dowladaha dariska madaxa la isu kaygeliyo dagaalkii ee ka abuurmay ee aan ognahay inuu hooyo u ahaa kii 77 ee dhibkii naga soo gaaray iyo jabkii annaga naloo horseeday dowladihiina geliyey iyo ballanqaadkii ay noo sameeyeen iyo siday nooga baxeen iyo siday cadowgeena ay ula safteen intaba marka aad isku soo wada dardartid xisaab ahaan dhammaan ay ka wada dambeeyaan ilaa maanta aad ku keentid maamul goboleedyada la samaynayo iyo ujeeddada loo sameeyey iyo nooca federaalka xataa ee shalay sida loo malaynayo ee dadka loogu sheegay iyo wejiga uu maanta ee uu yahay waxaasoo dhan waa wax abaabulan ee diyaarsan ee qorshaysan waayo xilliga lalahaa Soomaaliya building blocks ayaa laga samaynayaa oo laysa saarsaaray sidii bulkeetiyadoo kale ayaa loo kala qaadqaadayaa hadda ma aynan ahayn tiina waa mid hadda la gaaray ilaa annaga wax waliba inta laga yimid diintii ee annaga midda noo ahayd ee aan wada rumaysnayn ee nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam ay ku soo degtay misxafka qur-aanka aan annaga furqaan maartay ee iyada ay noo ahayd diinteenna in maanta annaga 12 xisbi ee kala duwan oo magac diineed wata in naloo sameeyey oo madaxa la isu geliyey oo psychologically nala wada rogay aakhirtaankana maanta muslim matihid iyo gaala tahay murtida tahay iyo khawaarija tahay waxa noogu daran ee maanta la isku dilay ee wiil Soomaaliyeed naftiisa u soo qadimay inuu isqarxiyo soo boqolaal Soomaaliyeed uu u salfado in la gaarsiiyo baad maanta arkaysaa marka wax noo reebtay ma jiraan annaga un baa hurudna mooyaan xildhibaane su-aashii xigta waxay tahay dadkaas dad Soomaaliyeed ha ahaadaan ama dad deegaan ahaan ama matasha ha ahaadaan golaha shacabka ama baarlamaanka weli ajanda ama soo jeedin noocaas inay geyseen ama yani arinta noocaas gudoonka ma u gudbiseen mawduuc si toos ah ee oga ma aragtay hadlaya qaabka hadda ee aan aniga iyo adiga isla qaadaa dhigayno runtii ma jirto laakiin fikriyan dad badan oo dareenka Soomaaliyeed ee ila qaba ama ha ku jiraan golayaasha dawladda ama aynan ku jirin oo shacabka dad aad u aragti fog oo nagaga aqoon badan diraasad badan ee ayaga ee dalkan iyo sida maanta uu dhibaataysan yahay iyo dadkiisa sida looga zaa'id caleeyay dareensan way jiraan maanta qof kasta oo Soomaaliya waa qiiroonaya marka la yiraahdo badeeni baa la qaatay Soomaalida waa wada gubanayaan kii gabay tirin karo tii buraanbur tirin karto kii idaacad ka hadli karo kii meel fagaara ka hadli karo dhammaan waxa way dadkii waa loo damqanaya dalkii dad waxa ka maqan qaabkii looga hortagi lahaa ee waxa socda qaar waxa way waaba iyagii baa marka u horeysay lagu bilaabay tashkiilinta ee dhibka socda oo dhan iyaga loo adeegsanaya in gacantaadii ma artay lagu biraynayo ma gartay oo iyaga u ah ma artay madiidin kuwa falalkan ee sameynaya iyaga soo adeegsada waayo ayaga badi kuwa cadawga nagu ah isma soo qadimaano ayaga si toos ah mubashara kuguma imaanayaan ama directly they do something behind the curtain yani waxay behind the curtain yani waraa satar qolqolka gadaashiisa ama daha gadaashiisa ayaga arimaha ka maamulayaan way fahamsoma laakiin waxa ay adeegsanayaan waa Soomaali waxa boqolkiiba 90 ee adiga dhibaatada ee inta gacantooda ee ayaga kugu soo gaarayso waa Soomaali kan adiga dawladda burburkeeda loo isticmaalayo waa Soomaali kan dalka kala jarjaridiisa iyo dadka kala qaybintiisa loo isticmaalayo waa Soomaali kan jinsiyadda ee Soomaaliya inay ayada wax laga carar ay noqoto oo aan qiimo dhac u keeni kara ee kan sameynaya ee dalka ee asaga ee inuu dal ma artay aan dad lahayn oo kale uu noqdo waa Soomaali midka fulinaya waxa soo dhan waa dad laga shaqeeyay mid hunguri qaada mid dadnimo qaada xumo qaada mid garasho xumo qaada iyo mid jaahilnimo qaada ayaa la wada yahay marka sidaa darteed waa in sida tan hadda dalka uu ku socdo maalin walba scenario cusub ee la soo dejinayo marba scenario siyaasadeed ee wadanka lagu waxyeeleynayo scenario amniyeed wadanka lagu waxyeeleynayo scenario dhaqaale wadanka lagu waxyeeleynayo scenario bulshadeed ee wadanka lagu waxyeeleynayo marka at least ilaahay dad buu naga dhigay bini'aadam buu naga dhigay dad muslina ay garasho oo diin iyo iimaan leh haddaan nahay waxa socda wax la aqbali kara maaha laakiin maanta reer hebel bay ku foorartaa ama gobol hebel bay ku foorartaa aniga maxaa iga galay dadka ku xisaabtama ayaa iga sii daran oo sidaas caqligooda ama walaalkaygaan gaajaysiinaya saan aniga aan u dhargo falsafad ka dhiganaya ma gartay ama walaalkaygaan dilaya saan aniga aan u noolaado ama walaalkaygaan u diidaya ma aragtay inuu noqdo nin jira oo aniga ila qaybsada ma gartay talada iyo ma artay iyo magaca anigana markaasi ka bacday waxaan gaaraya sidee adiga kugu suurtoobaysaa waxaanan adiga dadka kale ee aanan u suurtoobin adiga inaad ku hamisid
wallaahi dibiguduudkii la yiri adiga laguma socdee madowga ay cadkaan doonaya ii joog la yiri maalintii guduudka la cunay maalintii labaadna adaa ku xiga la yiri oo ma aniga haa maxaa dhacay sawtaa adiga waxaaga anaga qorshaha labaad baa ku soo galay ilaa kii cadaan loogu tago asagana uu yiraahdo maalintii dibguduud la cunay oo aan ogolaanay ayaa anaga nala wada cunay aniga iyo kii madoobaaba marka nin kastana way sugaysaa dad baa hadda Kenya Soomaaliya ay isku dhacayaan Tanzania iga ka raadinayaan they go to Kenya ama dal kale oo anaga Soomaaliya xiriirkeena isku xumaanayo ayay arkayaan subaxdii waa loo kala hayaa waxaaba laga raadsanayaa Tanzania ayadoo laga faa'iideysanayo dowladii Soomaaliyeed ama madaxdii Soomaaliyeed ama qarankii Soomaaliyeed baa yara mid madow soo galay adiga ooga faa'iideyso maamul goboleed hebel ahaan ama reer hebel ahaan ama shakhsi hebel ahaan ama siyaasi hebel ahaan this is stupid nima way waxaan dadnimo maaha war adiga iyo walaalkaaga ushi asaga waxaan maqli jirnay ushi walaalkaa lagu tumo gumudkeed adigu ku yaala ma gartaya ninna ka fakan maayo hadday shalay ana aan ku celinayno wixii Soomaali waqooyi ka dhacayana koonfur ka dhacay ma gartaya wixii koonfur ka dhacayana galbeedka ka dhacay wixii galbeedka ka dhacayana bariga ka dhacay meel Soomaaliya maanta wixii la abuuray aanan ku rogmanin ma jirto ilaahayna subhanahu wa ta'ala waa noogu digayo wala yahiiqu makru sayyi illa bi ahlihi dimin daabiyo oo nin walaalkaaga ama sokeeyahaaga aad la doonaysid ha u malayn inaad ka badbaadaysid ilaahay inuu adiga kugu rogo ayaa dhici karto marka dadka hadda ku fakarayo ka soo wada beeraha ma gartay ka keena idinkana xoolo ka sameeya kalluumaysiga ka soo raac inta keena adiga xoolo ka sameeya ma arta geela iyo ariga iyo looda ay ma arta iyaga ha ka soo tagaano inta keena biri marka adiga markay kuwaasi ay faqri ay noqdaan adiga taajirnimo meeshay kugu shaqaynaysa kaliga ada arkay dadka way ku fiican yihiin beeraha inay wada baxaan hadaa tiraahdo dadka kale ha ka baaqato tayda ii baxdo wallahi daanyeer adigu ku imaana doonfar adigu ku imaana tuug adigu ku imaana gomme adigu ku imaana shimbir adigu ku imaanaysa wax allaala wixii beeraha jabsanayo dhan taada isku imaanayaan waa gartay xildhibaan laakiin golayaasha sharci dejinta baarlamaanka adiga xataa waxa leedihiin awood ama capacity oo ah yaani in aan la xisaabtantaan hay'adda ama yaani dadkan hay'adan maareynta musiibooyinka ina u yeertaan oo dhahdaan yaani nuqul kamid ah yaani ina waxa ka weydiin su'aalo maadaama dalagii beerihii hay'ado FAO iyo WFP iyo xilliga beeraha soo go'i rabaan dadka Soomaaliyeed mucaawin wadanka soo galiya marka adinka xataa golayaasha sharci dejiga wadankan awooda leedihiin maxay ina hay'adahaas ku shaqada u yeertaan su'aalo lagu weydiiyo sandar waa su'aal aad u fiican aniga runtii dawladdu si indhali ku taageeri maayo laakiin waxay mudan tahay in lagu amaano waa halkeeda dawladda waxay sameysay wasaarad la yiraahdo wasaaradda gargaarka iyo maareynta markii hore waxay ahayd hay'ad hadda maanta wasaarad iskeeda u taaganay noqotay oo budgetkeeda leh runtii dad dhalinyaro oo dadaalaya oo wasiir ilaa iyo marka adiga aad aragtid maamul ahaan oo aan runtii ku amaanayno shaqada hadda ee wasaaradda cusub sida ay u wadaan ayaa maanta iyaga aan dareemayna aan arkayno oo awal NGO-yada oo dhan waxay ahaayeen jantarogan mid waliba waxay rabto ayay dalka ka sameeynaysay talaabaday rabto ay dhinacay doonto u qaadaysay tii waxbarasho xataa wadanka naga caawinayso waxay la ordaysay manhaj oo ayada wadanka ayada maalgeliya ay wadato oo waxa laga yaabaa arday Soomaaliyeed labada webi ee Soomaaliya ay leedahay sheek hadii la yiraahdo aanan garanayn Shabeelle iyo Jubba ama mid saddexaad haduu jiro sheeg la yiraahdo Daawud aanan garanayn laakiin hadaa tiraadid webiga Dijle iyo Furaad ama Nile ma gartaya ii sheeg meesha ay ku yaalaan inuu ku tirinayo ma gartaya ama yaani ama wadamo kale ama shisheeye ama Everest ama iyo mountain ma artay ma artay Kilimanjaro hadii adiga tiraad intay ku yaalaan oo ku sheegayo laakiin surad intay ku taala haduu ku yiraahdo gobolka Sanaago ay aanan ku dhihi karin ama caasimada gobolka Shabeellaha hoose aanan garanayn inay marka tahay laakiin hadii adiga aad tiraadid caasimada wadan kale ee adiga aad tiraadid intay ku taala ma artay caasimada maxal dhigi jiray wadan Carbeed ama mid uu doonaa noqdo ama wadan Asiana ama wadan Afrikaana hay'adda markaas maalgelinaysa ama Yurub uu la soo boodayo ma gartay oo uu ku leeyahay wadan hebel marka arimahaas oo dhan waxa waaye waa wax anaga markii hore NGO-yada qayb kamid ah oo ayada laftirkooda ay ka ahaayeen mashaakilka wadanka jira maayo masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'id tirada carabta masiibo dad wax u ah ayaa dadna faa'iido ugu jirtaa oo ayaga
ay ayaga danahooda iyo maalintaas iyo masaalixdooda ay gaarayaan. Inta yaree nala siinay cagsigooda ayaa annaga nalagaga bedelanay oo aanan dareemaynin, oo qaswo fikriga ee xataa maskaxda in nalaga maartay shubo, oo annaga dadkeenna caqligooda ilmaha jiilka soo koray ay wax baranaya xataa in wadankooda xataa aynan asagoonan goboladiisa kala garanaynin inay gobollo kale ee dalal kale inay ayaga ay waxbarasho ayaga ay ku bedeshaan janiska kaliya ay heli karaan inay hay-ad waxbarasho oo lacag la-aan ay siinayso. laakiin hadda maanta waxa noo taagan dadaalka aan sheegay ee xukuumadda ay samaysay waxay tahay ee gargaarka ku aadan. matalan dowladdii hadda maanta waxay dagaal kula jirtaa kooxaha nabadiidka waxay dejisay siyaasad meeshii la xoreeyo in maamulna laga dhiso, mucaawinan markaas la gaarsiiyo. markii la arkay dowladdii in sidaa meesha iyada ay xoreyso ciidankii ay degayaan, maamulkii la samaynayo, raashin iyo markii baahidooda iyo adeegii guud ee ayaga loo samaynayo, gawaari ab la samaystay dadaaba yimid oo ayagana u degay, iyagana istaraatiijiyad kale ee lasoo shirtagay, iyaga markii xagga ayaga ay xoreynayaan ayagana kuwaasay soo rarayaan. ilaahan kugu dhaarshay 2 tuulo hadda oo caana oo afgooy Alifo iyo Baghdad la yiraahdo, meesha isbaandeeska, cambaha, qumbaha, zaytuunka, canuuniga, babayga, mooska iyo ansalaatada noocyadeeda kala duwan, carrotka, ma gartay begelka, ilaahay ku masiibay koostada, you know waxaasoo dhan ee liinta ay u dheertahay ka bixi jireen tareedishay ku fadhiyaan waday. kulli dadkii waxaa la yidhi socda waryaada. markii hore weerar waxaa lagu qaaday, liin baa suuq lahayd, liintii waxay ku iibsan jireen loorkii ama fuustadii $100 wax ku dhow. sidii maalin walba hoos loogu waday siyaabo kala duwan ee isku xir ah si ayaga hoos loogu dhigo tacabkooda looga shaqaynayay. liintii waxaa la gaarsiiyey in la yidhaahdo fuustadii $4 aan idinkaga qaadanaynaa. ayagana markaasay samaynayaan intay qallajiyaan ay engejiyaan ayay imaaraadka iyo Dubai iyo dhulkaas ay u qaadayaan, way dhoofinayaan ayadoo barafuuno iyo daawo laga samaynayo calaa kiilo 14 dirham ayaa iyagana ay ku soo iibsanayaan. miskiinka beeraleyda ee falay, kabaabeeyey, waraabiyey, ma garatay, ee caygubay, ee intaas uu dhex joogay, ee ila xidhay, ee kulli ee nafto iyo ma artay ee uu isticmaalay ooliyo uu waraabkaasi ee wax badan ee asaga ee 3 jeer laga yaabo inuu ma aragtay fasalka markay u yar tahay oo roobkii eeba uu dheer yahay isaga intaas ku shahiidayay in uu wax inuu asaga kale iska daayay inay qaan ugu daraan ay yiraahdaan haddaad khasaartay kugan fasalka dambe ayaan kaa qaadanayaa lacag intaan lacagtaana weligiisa uu gudi waayo uu qaamaysnaado ilaa markii dambe maanta heer haddana loo gudbo la gaaro in la yiraahdo meeshaasi ha ku rafaadin waxba ka heli maysid, xamar soo gal anaga suuq ku hayno, ilmaha iyo waxaaga soo raro, FEC-gaaga sheeg, kaar numberkaaga ee lagugu soo tuurayo, inta imow halkaa markaa lagu dawarsado, asaga korkiisa lacag lagu sameeyo oo dhaqaale lagu raadiyo si daara dhaadheer loo dhisto, gawaariga qurxoon loo gato. iyo ka bedelkooda xagee ka helayaan marka waxaa sheegtay $4 in laga siin jiray oo ii kala 14 dirham lacag qaali ku soo qaadan jiray. marka xagee hadda waqtigan ka helayaan dadkaas marka ganacsatadu hadba ayada wixii u gadmaayo kuwan ee haddana ee moorooyinka sameynaya ee ayaga meelahan ee xamar dadka hala soo dejiyo dhahaya ayaga haddana kama marno waa tujaarul xarb yaa la yidhahda adduunya waa la yaqaanaa war business dadka ku shaqaysta waa la wada yaqaanaa. dowladnimo ma ogola oo waayo waxay ka sameeyeen lacagta markeeda horeba lacag sharci darro ah. dadkii maraakiib soo saari jiray lacagta iyadoo daabacan keensan jiray waa joogan sidii bariiskii burtii oo kale ee ka faa'iiday ee maanta hantida ayaga ay haystaan. xagee waxaad arkaysaa nin oo $100 milyan haysta oo 25 sano jira, ma gartay xagee uu ka keenay lacagtaan xamar anaga waa joognay intaan ku dhalan waxaan maqlay war nin jirto Xuseen la yiraahdo ma maqasheen, war nin unlaay la yiraahdo ma maqasheen. dadkii hore aniga awoweyga dhalxubuuday la dhihi jiray dharka iyo dhuuniga ninkuu dhibaayo dhalximuudaya uu soo dhawaada u naadi xoogaa yaroo beero oo 200 kilomitir oo deegaanka ayaan ugu beero badnayn magaca u baxay isniin dhalaxu ay leeyahay sanadkoo dhan abaar Ingiriiska u yimid asaa bixiya la yiraahdaa. war raggii kale ee maanta maalqabeenada ninkii xoogaa yar ee wax un meel helo waa la garan jiray. sarta online ma aragteen war ma aragteen sarta jirta Xuseen iyo ma aragteen waxaan kan ma aragteen xaashi weheli ma aragteen hotelkiisa hotel Ali Mahdi iyo ma aragteen kan waxaan maqli jirnay dad xoogaa yar bulshada ka tilmaam war hadda kaale adiga arag meeshan adiga arag kaale meeshan maalin walba 8 piano la dhiso 9 piano
maalin walba wax le adiga aad maartay aad indhahaaga ay qaban u hayin xagee ka timid lacagtan dadkeena waa gaajaysan yihiin kuwa ee dalalka kale ee maanta ayaga ee anaga aan cadowga hadda tinimada ee nalagu maaragtay hayo ee iyada qayb ka ah ay xoolahooda yaalaan waa ka ilaa iyo Nairobi waxay daadsan yihiin ilaa iyo South Africa ilaa iyo wadamo oo berri haddii ayaga ay yidhaahdo waxaan iskaga dureera ya meel ayaga ay gadaal ugu laabtaan aanan jirin waxaasoo dhan waxaa keenaya easy comes easy go ya waxay fudeed kugu soo gal fudeed ay kaaga baxayaan ya waa garta marka xildhibaane mawduucyo kale u guda galaynaa su'aalo muhiim ah maadaama guddiga arrimaha dibadda baarlamaankana muddo dheer ka soo shaqeynaysay ognahay ilaa shirar badan dibadda kaga qayb gashay waxaan rabnay xukuumadda maxaa kaga qorshaysan arrintan dadkan la dhibaateeyey oo beerihii in laga soo waday oo magaalada muqdisho la soo geliyey arrintaas xukuumadda maxaa ugu qorshaysan hadda waa inay wax uga qorshaysnaadaan qasab inay wax looga qorsheeyaan waa wax lagama maarmaan ah golaha shacabkan anaga waa horgeyn doonaa haddeerna waxa waaye fikir ahaan wasaaradda arrimaha maaragtay maxaa la dhihi jiray gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka way haysataa in dadka ka soo barakacaya sida qaabka daran ee iyaga oo aanan jirin wax ku kalifaya ee hunguri kaliya iyo FEC-ga lagu keenay xamar in lagu celiyo meesha ay ka yimaadeen koonfur galbeed kuwa ka yimid laday goto koonfur galbeed back waa inay u laabtaan waa kuwa ka yimid maartay Jubaland khaliim yarjicu ila Puntland ila Jubaland kuwa Hirshabeelle laga soo barakiciyay ee maaragtay gobolada maanta ee wax soo saar kale waa inay ku laabtaan Hiiraan sidoo kale waa in kuwa shabeellooyinka ee maartay shabeellaha hoose ugu darnaatay iyagana sidaas oo kale uga yimid waa inay ku laabtaan waa in xamar nin shaqaysanaya lagu arkaa noon dad shaqo ka dhigtay tuugsi iyo maartay iyo xeer moore loo ooday ayaga dalkan oo ilaahay nooga dhigay hodan oo khayraadkiisii meel walba ay dihan yihiin ee cadowga banaanka usoo haliilaya waa in dadkii ayaga lahaa waa inay ka nafciyaan oo garashadar hadday u tahay la garowshiyaa hadday ayaga cid kale oo ayaga arrintaasi ku falle waa inay dowladdu ka hortagtaa waa in loo helaa barnaamij iyo qorshe dhaqaale ee arrimahaasi degdeg wax looga qabanayo haddii kale dalkan soo maaha dalkan wuxuu noqonayaa dal dadkiisa iyaga ay ku noolaadaan maciishatan danka nolol xun oo maartay oo aanan wanaagsanayn afarta xabba ee saraha dhaadheer ee meeshan ay ku hayaan waxay cunaan hadday waayaan ayaga yaqaan meesha ay saraha ay maartay bees u noqonayso iyo hadday cuno u noqonayso ama gawaarida qurxoon xamar waxaa lagu joogaa babayga iyo galeyda iyo mooska iyo maartay iyo qaraha iyo maartay iyo bocorka iyo maartay yaanyada maartay iyo malayga iyo maartay iyo hilbaha ariga iyo maartay ilaahay kuma samadiiday geela iyo lo'da maalin walba maartay ayada albaabada ama afgooy ama kasoo gelaya dhinaca warshiq iyo dhinaca balcad haddii intaas ay weydo xamar waa la iscunaya ma gartay beesada waxba kuma tarayso mana cunayso haddaad $1,000 adiga aad haysatid wallahi maalinaada aadaad ku weydid kun ma aragtay dollar saxan bariis ah adiga aad ku cuntid dad weyd ama saxan ma aragtay oo ma aragtay oo soor ah oo ay ku gooyn weyso waxay $1,000 dahabkaaga u taray ma jira dad khasanada xataa ay kaaga buuxaan marka waa inay dareemaan dadka aqliga qaab daran ku jira ayagana inay wax soo saarkii ee dalka inay burburiyaan ayagana dollar iyo dahab oo ay ku bedeshaan inay wax ku heli doonaan ama meel ay gaari doonto ma aragtay noloshooda marka dadka waxba la isku yahay ma gartay nina goonigiisa wax ma noqon karo dalkaasaan waxna la isku leeyahay ummadda Soomaaliyeedna wax iskugu tahay dadka si gaarka ayaga wax isugu inay isu haystaan ama xoolahooda iyo aqligooda caaniteenka inay ka waantoowaan ummadan ayaga dhibaatada ay ku hayaan iyo kala qoqobka iyo wadankan beeca ay ku hayaan khayraadkiisa kulli ku guuleysan maayaan sida aan maanta aan ogahay kama aqli xumin anaga ninkii carabka ay yiri maartay dhannu an al-ardh yubaacu bay'an hasatin waxay u maleeyeen dhulka sida maartoo kale in loo gadan karo dhulkan maartay khayraadkiisa iyo ummadiisa khaabu way ku fashilmeen fal yabiicu al-asad arinahu malibaha godkiisi asaga kooyena iska iibinaya ma wadankan beec kama ah Soomaaliya beecna nagama noqon doono laakiin ninka hunguri wada ee wixiisa asaga ay yihiin ii dhib والله إن هذا كوبي سيد أدنى خسارة سيد فإذا أدنى كجارين فور إيفانه تاريخ هم وجهك كاغتا ينعلد إن أدولي أديك أيان كافقين إنك هو هاري دونتو. أقرتي حلبانة قبل ورئيسك كلون هاي هل سؤال
أنا شخصيا كوري مهم أو أركان وأنا كويديو بريه دمنا دتك آد وهذا الهين وحرير كدولة كينيا الصومالية مرحبا كينيا أمباسطور كمسافر كصومالي أفريقيا مرحبا أنت إماضي لوضع السفير كدب حالة لقى جاري هذا مرحبا أنت كينيا أو بدأ على سوق بصدي سيدك هذا حالة لقى جاري هذا بريه قدام بكينيا حوالي على حرير مركز لقى رهيب الدهبشيل iyadana sidoo kale dhibaato ka taagneed habeen dhaxaas hadana dawladda Itoobiya waxay soo saartay map ama khariirad oo yaani Soomaaliya ku jirin kadib wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya way ka hadashay waxay dhahday arintaas raalgelin ka bixinayna dadka technical ahaan ama farsamo ahaan arintaas khariiradaas qoraya ka tagay Soomaaliya dhaheen marka labadaas wadan Itoobiya iyo Kenya xiriirka in ka dhaxeeyo oo diblomaasiyadeed bal waxa nooga sheeg okay hadaan kala qaado labada ma aragtay su'aal Itoobiya iyo Kenya Itoobiya ay dambayso Kenya bariwaan markaan dhalinyarada ahaa ee fankana aan maartay ku lugta lahaa ayaa waxaan xusuustaa anigoo school ah in riwaayad aan dhignay anagoo arday ah isma waday waxbay wada ma gartay waxa way Kenya ayada teeda waxa way isma waday waxbay wada way Kenya waxba wada ma gartay kaligeed isma wado gartay ama dawladda oo badda Soomaaliya khayraadka ku jira ee damac kaga jira iyo shirkado oo ayaga Kenya meesha kaliya ay ayaga kaga imaan karaan ay kaga soo dhabar jabin karaan Soomaaliya ay ayaga u arkay bartilmaameed kuwaasa Kenya dabada ka riixay maan Kenya intaasan daris ahayn ya ilaa iyo 63 iyada xoriyad qaadatay anaga 60kii aan qaadanay maxay la aamusnayd maxay la ma artay soo dhaqaaqi weyday hatta burburkii meeqa sana ka soo wareegtay maxaa hadda soo kiciyay ya sheekadan waa sheeka ayada kaligeed aan wadin waa la wataa waxay ka heshaba ma gartay dadka gadaasheeda ay ayada ku gabanayaan sanadaay sheegay waa la wada fahmaya aniga dadka hore waxaan iri dadka aanan riwaayadaha reer xamarka badlan banaadiriga aanan gali jirin ama aan aqoonin qaabka loo dhigi jiray waxay iskaga khaldamayaan labadan waxay tahay riwaayadahaasi dadka jila iyo kuwa heesa ninkii yaqaano shakhsi baa kala saari kara siiba waliba heesaayaasha marka loo fiiriyo sababtoo ah مثلا nimanka heesa hoos bay ka heesaan waagaag daawadeel intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno barnaamijka kulanka SBC xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya qaybna ka ah guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka xildhibaan aad u mahadsantahay sharafeen oo tahay sidoo kale dheere adiga iyo asxaabta kale aanan u kala harin Beys iyo Mukhtaar sidoo kale waan salaamayaa sidoo kale mahadsantahay waxaan leeyahay soo dhawaada xaafadiina dhanka farsamadana waxa iga caawiyay Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad dhanka kaamirooyinkana waxa ii joogay Mukhtaar Cabdi Aadan anigoo sandheeraa barnaamijka idin soo saaray barnaamijkan kan ka sii xigeentaa ku kulmayna sidaas nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh